السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel kastood caalamka joogtiin waa koojmahadoodan leh soo dhawaada. aad iyo aad ugu xumahay inaan muddo dheer kala maqnaano, muddo ku dhow 2 bilood ayaan kala maqnaay runtii. safar dheer ayaan galay from Germany to Nairobi, from Nairobi to Turkey, from Turkey to Germany, from Germany to Turkey on hadda joogo. runtii safar dheeraan galay. insha Allah aad iyo aad ugu xumahay inaan muuqaaladii aan idin soo geli jiray aad weyseen, laakiin hadda inoo bilaabatay insha Allah. maskaxdu waa fresh, qoraxdii Africa, waxyaabo badan markaas insha Allah jira. okay, marka wixii hadda ka dambeeya waa si toos ah ayaan markaas waxa weeye muuqaaladii aad iga barateen ku saabsanaa lifestyle-ka iyo nutrition-ka iyo sida qofku noloshiisii bodigiisa u qurxi karo ayaan idiin soo gelinaya insha Allah biidhnillaahi alkariim. marka waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo bishii Mars ee hadda socota. waxaa noo socda challenge runtii anigoo maqan weliba ayuu noo bilaabmay. maxaa yeelay mar haddaad social media haysato oo aad social media isticmaalayso, ood internet haysato, ood mobile haysato, customerkaaga qaab kastaad ku wada xiriiri kartiin ama qaab kastaad ku caawi kartaa. marka challenge ayaa runtii noo bilowday. challenge-gaasoo weliba dhiirigelintiisa wata, abaalmarin wata. runtii qof kasta oo kaalinta koowaad gala hadduu miisaan rabo hadday tahay inuu miisaan dhimo iyo hadday tahay inuu kordhiyaba, waxaan ugu talagalnay inaan siino lacag abaalmarina oo ilaa 300 euro ah. kaalinta labaad qofka soo galo isaguna dadaala 200, kaalinta saddexaad qofka kale 100 euro. runtii muhiimadu lacagta maaha, laakiin waa dhiirigelin inuu markaas waxa weeye customerkaaga uu dhiirigelin ka helo, asagana markaas uu noloshiisii wax badan ka bedelo. ka waran haddii lagu yiraahdo noloshaada bedel, tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad miisaan dhinto, just adigunbaa miisaan ka dhimayay. waxaad jeceshahay inaad murqahaaga kor u qaaddood korido, just adigunbaa kor u qaadayay. haddana laakiin ka waran marka follow upkii iyo maaragta dhiirigelintii haddana waxa weeye extra mid ah lagu sii daro. runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad idinkuna ka faa'iidaysatiin, annaguna aan dhiirigelinta idiin samayno. xaqiiqatan dad badan hadda tartankii ku jira already. maanta wuxuu noo marayaa 23 bisha, waxa ka dhiman hadda 7 beri, waa 30 maalin oo challenge ah. marka waxaan rabaa inaan insha Allah kaas uu idin dhaafay dadka ka faa'iidaystay runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaya dhammaantood. insha Allah dhammaantood waxaan leenahay gruubyo gooniya oo aan si qaas ah qof kasta maaragta aan ugula soconno. aad baan ugu hambalyeynayaa 7 beri oo dhiman. waxaan leeyahay insha Allah keep going, hore u socdo. bishu markay dhamaatana insha Allah waan arki doonaa qofkii kaalinta koowaad gala, kaalinta labaad, kaalinta saddexaad. haddaad intaas geli weyda xataa just waad dadaashay, noloshaada wax badan ka bedeshay, marnaba khasaare ma qabtid. marka waxaan rabaa marka inaan idiin sheego intiina aan weli fursadan ama jaaniskan aan weli ka faa'iidaysan, 7 beriyo bisha ka dhiman ama 8 beriyo bisha ka dhiman, nagu soo biir insha Allah. aan coach kuu noqdo, aan ku siiyo qorshahaagii, balaankaagii, aan kula rumeeyo inaad gaarto hadafkaaga ama riyadaada aad rumayso. adigaa garanaya waxay tahay. marka 7daas beriyaad ku diyaar garoobi kartaa. kadibna waxaan bilaabaynaa 1 April ayaan waxaan bilaabaynaa challenge cusub haddana oo same sidii oo kale ah. ka faa'iidayso. ramadaana ku dhex jira oo runtii weliba dadka especially miisaan ka dhimaya ay jaanis u tahay, maaragta fursad qaali ay u tahay runtii. because bisha Ramadaan dadku inta badan cuntooyin qaldan ay cunaan, waqtigu kooban yahay, saacaduhu way yar yihiin, qofkii cuntada jirkiisa oo cuna kama baxayso. haddana Soomaali haddana cuntooyin culusaan runtii cunaa. waxa dhan oo la afuran yahay waa saacado yar. qofka ugu badanaba 4 saacadood 5 saacadood ah. ka waran marka adigoo saacadahaaga yar yihiin haddana waqti badan ku sugaya Ramadaankii. dabcan waxaad is leedahay si aad berri u gaajoon wax badan cun, laakiin wixii aad cuntay dhibay kuu keenayaan, caafimaad darro iyo lifestyle-kaaga fool xumaada. maalinta ciidda la gaarana hadde waxa weeye shaati kula eg ama maaragta wax aad gashato ma helaysid, because Ramadaankii la rabay inaad markaas waxa weeye uu kuu noqdo bil cibaado, bil miisaan dhimis, ayaa laga yaabaa inaad miisaankaaga kordho. sababtan waxaa keenaya cuntada xun oo xilliga cunaysa wey. marka challenge kale kuu sii tahay runtii inaad idan kaga sii faa'iidaysato. marka challenge-gan waan wadaynaa. bisha saddexaad oo bilowday, saddexaad, afraad, shanaad, lixaad, saasuu ku soconaya insha Allah. haddaad jeceshahay marka inaad ka qayb gasho waan ku soo dhaweynaynaa. kaliya waxaad samaynaysaa inaad qoraal ii soo qorto social media-hayga, Facebook-ga ama especially weliba WhatsApp-ka.
adigoo ii sheegaya halkaad joogto iyo goolkaaga wuxuu yahay ood rabto challenge inaad kaga qayb gasho. haddaad rabto inaad miisaan dhinto welcome soo dhawow. haddaad rabto inaad kordhido saasoo kale. haddii aad cuntadaadu xun tahay oo aad tahay qof low energy ah oo maaragta nutritionka ku yaryahay dareemaya wareer iyo maaragta cunto xumo iyo quraac xumo iyo no energy ayadana saasoo kale balaankii kugu habboonaa ayaan ku siinaynaa. It's not only losing weight keliya ma ahan, marka qorshahaaga ayaa lagu siinayaa. marka insha allah bidnillahi alkariim waan soo laabanay mar kale. waan joogaa wixii hadda ka dambeeya muuqaaladu si toos ah idinku soo dhici doonaan. safarkii waan ka imid waxa weeye maasha allah soo dhawaada marka dhammaantiin insha allah bidnillahi alkariim. runtii aan ka faa'iidaysano bisha marka kowdeedaba uu bilaabmaya. marka diiwaangelintu waxay soconaysaa laga bilaabo caawa haddaad telefoonkayga soo garaacdo ilaa iyo 31 bisha. 1 bishana waxaa noo bilaabanaya challenge-gii. marka qof kastana waxa looga baahan yahay waxaa jira waxyaabo qasab ku ah inuu sameeyo because challenge-ga la iskama galo kaliya ma dhehaysa challenge-aan galaya, laakiin challenge-ga wuxuu u baahan yahay qorshihii, plaankii, systemkii, maaragta waxyaabaha u baahneed oo dhan insha allah ayaan kuu sheegayaa. just markaas waad ila soo xiriiri doontaa waana kaa caawi doonaa insha allah bidnillahi alkariim. muuqaalka ma rabo inaan dheereeyo, dadkii horena waan u hambaleynayaa oo challenge-gu u socday. idinkana waxaan leeyahay fursadda way idiin furan tahay, soo dhawaada insha allah bidnillahi alkariim. channelkan waxaad uga soo hagaagaysiin only lifestyle-ka iyo nutrition-ka iyo business-ka online-ka qaabkaad ku samayn karta insha allah. aad baan idiin salaamayaa kooshmahadooda leh. muuqaalka xiga ma foga insha allah bidnillahi alkariim. waan la soo wadaagi doonaa bisha challenge-gii waxa aan samaynay, qofka kaalinta koowaad galay, qofka kaalinta labaad galay insha allah waad nala soco doontiin. marka weliba waxaan rabaa inaan idinkugu sii daro haddaad doontiin waxaan idinku soo casuumi karaa zoomka dadka loogu hambaleynayo inaad kasoo qayb gashiin oo kale maaragta 1 bisha ama 31 bisha oo kale aad dhegaysato si aad adiga laftirkaaga aad halkaas wax badan aad uga ogaato go-aanna u qaadato insha allah. marka qoraal idin soo qori doontaa insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.